halkan waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono daawadayaasha iyo saaxiibada inagu xiranow waxaa ka mid noqon doona aanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa hadduu alla weyn raali ka noqdo dibadbaxyo ballaaran ayaa ka socda magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland xilli waxyeelo dhibaatooyin dhaawac ay taagan yihiin booliiska ayaa adeegsanaya dhagxaan sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas nool waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arrinta la xiriirta xilli isgaarsiinta la hakiyay waxyaabaha kale aad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu soo saaray wareegtadaasi oo amar ku duldhigay xukuumadda cusub barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alla weyne raali ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu falanqeyn doonana waxaa ka mid noqon doona oo aan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal golaha wasiirada cusub ayaa xilka la wareegaya maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah golahaasi ee xafiiska la wareegi doono iyo kuwii hore ula wareegay oo barnaamijkan idinkugu falanqeyn doono qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada halkan waa nuxurka waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaashii saaxiibada sida tooska inagu xiran leegreesher grey qaybta saarada waxay kula tahay nagu dhaaf daawade barnaamijyo rabshado wata ayaa ka socda Somaliland Jamhuuriyaddaasi iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday wararka laga helayo Somaliland ayaa sheegaya in deegaanadaasi maanta ay maamulkaasi ay ka bilowdeen dibadbaxyo waaweyn oo ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaridka ah ee UCID iyo wadani iyo taageerayaashooda oo isu soo baxaasi markaasi sameynaya kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumaddu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulkaasi Somaliland dibadbaxyada oo ah kuwa rabshado wata ayaa ka socda dhowr magaalo oo ka tirsan Somaliland waxaana la sheegay inay sii kordhayaan dadka ka qaybgalaya dibadbaxyada wararka ayaa sheegaya in xaaladdu ay faraha ka baxday taasi oo keentay in ciidamada ammaanku ay rasaas u adeegsadaan qaar ka mid ah dibadbaxyaasha taasi oo dhalisay khasaare kala duwan walow aan la caddeyn karin tir ahaan intay gaarsiisan tahay dhaqdhaqaaqyada ka bilowday Somaliland ay hormuud ku yihiin mucaaridku ayaa looga soo horjeedaa madaxweynaha maamulkaasi oo ay ku eedeeyeen inuu wado muddo kororsi ama muddo dheereysi xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana sidoo kale maamulka Somaliland uu hawada ka saaray sida la warinayo isgaarsiinta taasi oo keentay in markaasi xoguhu ay aad u koobmaan waqti badanna la daydayo arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay fashil ku soo dhamaadeen wadahadaladii u dambeeyay mucaaridka iyo xukuumadda si xal looga gaaro xiisadda ka taagan Somaliland ee ka dhalatay muran ka hareeyay hanaanka doorashada ee maamulkaasi barnaamijyada ka socda Somaliland ayaa qorshahoodu wuxuu markaasi soo socday bilihii u dambeeyay kaas oo haatan sare u sii qaaday xiisadda ka aloolsan Somaliland si kastaba Somaliland ayaa waxaa ka taagan xasarado iska soo horjeeda kuwaas oo ka dhashay doorashada maamulkaasi oo isku khilaafeen mucaaridka iyo xukuumadda haddaba intaan ka bixin isla arrimahaasi Somaliland waxa markaasi taagan dibadbaxyadaasi iyadoo ay markaasi horey dibadbaxyadaasi u shaaciyeen xubnahaasi mucaaridka ah sida Faysal Cali Waraabe iyo hogaamiyaha xisbigaasi wadani Cabdiraxmaan Cirro kulsi horeysana waxaa la arkayay Cirro iyo sidoo kale oo ah musharaxa xisbigaasi iyo gudoomiyaha xisbigaasi oo gacmaha haysta iyo taageerayaashooda oo ku socdaalaya wadooyinka waaweyn ee Hargeysa maamulkaasi ayaa markaasi ogolaaday xisbiyada mucaaradku inay ku dibadbaxaan goobo kooban oo qura sida dhowr qaybood oo markaasi loo ogolaaday taasi oo ay diideen kadib muddo shir qaatay maalin dhan oo la isku fahmi waayay waxa sidoo kale markaasi maamulkaasi wasiirkoodii arrimaha gudaha uu markaasi dalbaday ama uu sheegay eedan uu jeediyay Cirro oo shirka ka maqnaa in markaasi uu soo daabulay ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ka yimid Xamar sida uu hadalku u dhigay ama eedeynta uu jeediyay wasiir Maxamed Kaahin oo ah wasiirka arrimaha gudaha dibadbaxyada ayaa markaasi
waxaa ka qayb galay dhalinyaro, haween iyo markaasi dad da' ah, iyadoo la arkayay rasaas nool oo dhacaysa qaybo ka tirsan gobollada Somaliland. Waxaa sidoo kale la yaab ahayd in booliisku ay adeegsanayeen dhagxaan oo ay la dhacayeen dadka, taasi oo sababaysay dagarro markaasi inay soo gaaraan dadku. Si kasta oo xaaladda noqoto, sunta dadka ka ilmaysiisa ayay markaasi ku tuureen oo ay adeegsadeen, taasi oo iyana markaasi keentay in ay dadweynuhu markaasi kala firxadaan oo ay markaasi u baxsadaan suntaasi dadka ka ilmaysiisa oo waxyeeleysay. Qaar ka tirsan golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa xilka la wareegaya maanta. Waxaa xafiiska markaasi lagu wadaa in maanta ay la wareegaan gulihii wasiirada dhawaan uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo labadii maalin ugu dambeysay markaasi shaqadoodii ay socotay. Ra'iisul Wasaaraha iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac ayaa labadii cisho u dambeysay xilalka u kala wareejiyay in ka badan 10 wasiir iyo wasiir dowlayaal ka tirsan xukuumadda cusub. Wasaaradaha xilalka la wareegay ayaa kala ah Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Bii'ada iyo Isbeddelka Cimilada, Wasaaradda Gaadiidka, Hawada iyo Duulista, Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Wasaaradda Amniga, Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta, Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka. Sidoo kale mas'uuliyiinta la wareegay xilalkooda waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac oo xilka kala wareegay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka hore Mahdi Guuleed Qadar. Dhinaca kale, wasiiru dowlaha madaxtooyada Abshir Bukaari iyo wasiiru dowlaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka mid ah wasiirada la wareegay xilalkooda. Waxaa lagu wadaa maalinta Sabtida ah in la soo gabagabeeyo xil wareejinta golaha wasiirada ee cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddii uusan isbeddel ku imaanin dhanka jadwalka ee wasaaradaha. Tii oo la ogsoon yahay in Ra'iisul Wasaaruhu u socdaali doono dhanka iyo magaalada Garowe oo socdaalkiisa ugu horeeyay ku bixin doono. Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, wasiirka diinta iyo awqaafta, ayaa ka mid ahaa xubnihii xilka la wareegay ee hadlay, isagoo sheegay kor sii horeysay inuu isku wadi doono culimaa diinka Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ama firqooyinkooda iyo markaasi madahibtooda kala gedisan sidoo hadalku dhigay. Haddaba Ra'iisul Wasaaruhu amar ayuu dul dhigay xubnaha wasiirada ah ee cusub ee diiwaangalka ah. Amarkaasi ayaa daarnaa 3 qodob. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray go'aano culus oo la xiriira ilaalinta nidaamka shaqada iyo hantida qaranka sida lagu shaaciyo warqad ka soo baxday xafiiskiisa. Ra'iisul Wasaare Barre ayaa soo saaray 3 qodob oo sida ku cad qoraalkiisa uu ku arkay inay muhiim u yihiin ilaalinta ku dhaqanka shuruucda dalka. Qodobadaas ayaa kala ah in dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumaddu ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo. 2. waxa uu ka reebay magacaabidda iyo shaqo ka joojinta saraakiisha darajooyinka sare ee waafaqsaneen dastuurka iyo sharciga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. 3. mas'uuliyiintu inaysan xil magacaabis sameyn ama aysan kala bedelin mas'uuliyiinta hay'adaha ay madaxda ka yihiin waa inay waafajiyaan sharciga isla markaana ay la tashi kala sameeyaan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Amarkan uu Ra'iisul Wasaaruhu dul dhigay mas'uuliyiinta dowladda ee wasaaraddu ay ugu horeeyaan wuxuu ku soo aadayaa iyada oo maalmahan si xoog leh u socoto xil wareejinta wasiiradii hore kuwa cusubna ay xafiiska la wareegayaan. Taasi oo muuqata in Ra'iisul Wasaaruhu diidan yahay in markaasi durbaba xilka qaadis lagu sameeyo xubnihii hore u joogay xafiiska. Warqadan ayaana ku socotay dhammaan xubnaha golaha wasiirada iyadoo la ogeysiiyay hantidhawrka guud ee qaranka iyo guddida qaranka ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladdu. Ra'iisul Wasaaruhu ayaana cuskaday qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka dalka. Si kasta oo xaaladda noqoto, Xamse Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa tallaabadan markaasi xalayta soo saaray xilli dambe iyada oo si weyn loo isla wadaagay. Amarkan ayaa dadku qaarkii markaasi ay ku sheegeen in markaasi aan habbooneyn oo markaasi wasaaraduhu loo madax banaaneeyo shaqadoodu, halka kuwa kalena ay leeyihiin in markaasi Ra'iisul Wasaaruhu ku dhusaxsan yahay in la sameeyo isku dhexyaac siyaasadeed oo uu diidan yahay sida ay markaasi u dhigeen hadalku. Halkan waa xanta wararka. Haddii aad ku cusub tahay nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska nagu xiran. Fadlan like garay, share garay qaybta hoose ee arahdaada. Waxay kula tahay nagu dhaaf daawade saaxiib. Intaanu barnaamijkan ku kulmi doono midkiisa kale waxaan idin dhaafnaa oo idinkaga tagnaa sida ay nabaddiino.
amaana allah ku biiro ka mid noqdo daawadayaasha nagu xiran.